asalaamu calaykum saaxiibaya waa saaxiibkii Tamer Recap soo laabasho wanaagsan maanta waxaan inoo sharaxi doonaa series lagu magacaabo Alice in Borderland kaasoo ah sida Koreaanka kuwooda ugu fiican amase kan keliya aan isleeyahay waa favorite-kaaga haddaba intaynaan bilaabin fadlan nagu soo biir like saar fiidiyowga siina sheer garee mahadsanid filimkeenuga wuxuu ku bilaabmayaa wiil lagu magacaabo Arisu oo ah wiil jecel ciyaarista filimka kaasoo aan noloshiisa wax kale ka fikirin wuxuu saacado badan ku qaataa horfadhiga kombiyuutarka isagoo geymska ku mashquulsan walaalkii ayaa qolkiisa soo gala oo ku xanaanta waraysi shaqo oo uu diyaariyay Arisu kaasoo uusan tegin wuxuuna ku dhahaa waxaa tahay qof xaajis badan oo wax matare ah kadib Arisu hadalkiisa uu ka xanaaqa ka soo baxaya guriga isagoo xanaaqsan wuxuuna fariin u diraa saaxiibadiis Kurabi oo shaqadiisa laga soo eriyay kadib markii lagu qabtay isagoo jacayl la jilay xaaska booskiisa iyo sidoo kale saaxiibkii Chota oo isagana shaqada laga soo eriyay kadib markay kulmaan waxay ka sheekaysanayaan waxyaalo mala awaala sida zombie soo weeraray magaalada Kurabi wuxuu kula kaftamayaa saaxiibadii in haddii zombie soo weeraro uu Arisu noqon doono kan badbaadaya sababtoo ah uu maskax badan yahay hadallo badan kadib Kurabi wuxuu madaxa ku qaada Arisu halka Chota uu sawir ka qaado laakiin si lama filaan ah waxay u galayaan wadada iyagoo traffic jam sababaya kadib booliska ayaa ku soo dhaqaaqa halka iyaguna ay galaan masquul ku taala xarunka tareenka si ay ugu dhuuntaan halka markii ay dibadda u soo baxaan waxay arkayaan in dadkii aysan joogin magaalada waxay eegayaan meel walba laakiin qofna ma joogo xitaa telefonadoodii signalka ayaa ka tegaya kadib Arisu wuxuu leeyahay malaha tan waa fursad fiican oo mar dambe ma arkayno qof canaananaya ma jirayo qof naga cadhaysiinaya sidoo kalena ma jirayo qof shaqo noo dirsanaya dhammaan dadkii oo dhan waan weynay laakiin si lama filaan ah Snowed ayaa iftiimaya waxaana ka soo muuqata fariin odhanaysa ciyaartu waxay bilaabaysaa goordhow fariintaas waxaa la socota fallaar tilmaamaysa dhanka ay u soconayaan waxay raacaan tilmaamaha waxayna galaan dhismo weyn halkaas waxay ka qaataan telefoonadooda geymiska iyaga oo aan ogeyn waxa dhacaya gabadh magaceedu yahay Shibuki ayaa ku soo biiraysa waxayna ku leedahay wax kale ma jiraan kaliya waa inaad ciyaartaan ciyaarta ugu horeysa waxaa lagu magacaabaa geeri ama nooc levelkeeduna waa ka ugu hooseeya ciyaartu waxay leedahay laba albaab mid sax ah oo haddaad geshid aad ku badbaadaysid iyo mid khaldan oo haddaad geshid aad ku dhimanaysid kaasoo laysar ku dili doono qolka koobaad Shibuki ayaa gabadh kale u sheegaysa inay furta albaabka iyaduna furaysa laakiin nasiib xumo waa albaabkii khaldana waxaana markiiba madaxa kaga dhacaya laysar waana ay dhimanaysaa aad ayay uga naxayaan arrinka waxaana ay Shibuki ku canaananayaan inay iyadu mas-uul ka tahay dhimashada miskiinta yar kolka labaad Kurabi ayaa u sheegaya Shibuki inuu isagu furi doono kan laakiin albaabka xiga inay iyadu furi doonto maadaama ay gabadhii miskiinta ahayd ay sababteeda u dhimatay kadib geesilmo ayuu muujinaya wuxuuna nasiib u yeeshaa inuu furo albaabka saxda ah marka laga gudbo qolka saddexaad ciyaartu waxay noqotaa mid cabsi leh halka tiimku ay iskhilaafayaan iyagoo Shibuki u sheegaya inay markeedii tahay oo laga rabo inay albaabka furto laakiin nasiib wanaag Arisu wuxuu adeegsadaa awoodda aqligiisa iyo xusuustiisa isagoo xisaabta dhismaha ku dhisan yahay iyo sida ay qoraalku isugu soo horjeedaan si uu arka habka albaabada u kala furmayaan kadibna albaab ayuu uga sii gudbinayaa ilaa ugu dambeynta ay ku guulaystaan ciyaarta marka ay bannaanka u soo baxaan waxay arkaan kaaran miisas dul saaran kaasoo ka turjumaya leefarka geemka ay ciyaareen kadib teleefanadooda waxay sheegaan inay heleen fiisa 3 maalmood ah macnaheeduna tahay haddii aysan 3 maalmood gudahood ciyaar kala gelin laysar cirka ka yimid ayaa dili doona islamarkaas ayuu nin meesha ka soo muuqda wuxuuna leeyahay fiisahaygu waxay dhammaanaysaa maanta ma raba inaan ciyaaro game mar dambe islamarkaas ayuu laysar madaxa kaga dhaca wuxuuna ku dhintaa halkaas Shibuki waxay dhahdaa haddii aad rabto inaad noolacto waana sii wada ciyaarista gameskan xalqada koobaad waxay ku dhammaanaysaa iyadoo gabadh usagoo lagu magacaabo Usagi ay taagan tahay saqafka dhisme iyadoo arkays laysar cirka ka soo dhacaya kuwaasoo lagu dilayo qofka ciyaarta ku guuleysta xalqadeena labaadna waxay ku bilaabaysaa iyadoona la tusay Usagi oo buuraha la fulaysa aabaheed waa xasuuso hore oo muujinaya xiriirka qotada dheer ee ay la lahayd aabaheed waxay aabaheed ku leedahay keliya fuulista buuraha ayaa ku dareemaa deganaansho waxaynu ogaanaynaa in Usagi ay tahay qof kali socdo ah oo xoogan dhanka kale Chota wuxuu u sheegayaa Arisu in qalabka elektarooniga ah aysan shaqaynayn balse raadiyayaasha hore ay weli shaqaynayaan kadib Arisu Kurabi Chota iyo Shibuki waxay wada jir u cunayaan cunto iyagoo wada sheekaysanaya Kurabi wuxuu weydiinayaa Shibuki
halka ay ka timid maalintii geemku ay bilaabmayeen maadaama iyadu information ka siisay una sheegtay inay ciyaartu tahay mid lagu dhimanayo. Shibuki waxay shaaca ka qaadaa inay ciyaarto ciyaaro kale ka hor inta aysan la kulmin iyaga. Kuraabi wuxuu ku eedeeyaa inay isticmaalaysay dadka kale si ay nafteeda u badbaadiso, iyaduna waxay si toos ugu jawaabtaa inay samaynayso wixii ay ku badbaadin karta nafteeda. Arisu wuxuu ogaadaa in iyagu ay shalay uun galeen ciyaarta halka Shibuki ay ilmaalma joogtay. Kadib waxay isweydiinayaan sidee ayay suurtagal u tahay in games hore loo ciyaaray. Arisu wuxuu rumaysan yahay in qof madax uu wax ciyaartan dhan uu ka dambeeyo. Shibuki waxay sheegtaa inay ka shakisan tahay inay ku jiraan duni dijitaal ah oo iyaga lagu tijaabinayo. Jota lugtiisu waxay ku gubatay ciyaartii hore, wuxuuna dareemayaa xanuun daran. Sidaa darteed Arisu iyo Kuraabi waxay go'aansadaan inay galaan ciyaar cusub si ay u helaan fiisa dheeraad ah, kadibna ay u helaan dhakhtar daweeye Jota. Waxay galaan ciyaar ay la ciyaarayaan 9 qof oo kale. Usagi waa mid ka mid ah ka qaybgalayaasha ciyaarta cusub. Ciyaartu waxay ku saabsan tahay inay soo helaan batan qarsoodi ah iyagoo iska ilaalinaya inuu dilada ninka maaskiga xidhanay. Magaca ciyaartu waa gacan ku dhigid. Shuruudaha ciyaarta: 1 qof ayaa ah kan wax eryanaya. 2 qof walba waa inuu iska ilaaliyaa in la taabto. 3 ujeedada ciyaartu waa in la helo batanka sirta ah kaasoo la qariyay. Hadday heli waayaanna way dhimanayaan. 4 waqtiga ciyaarta loogu talagalay waa 20 daqiiqo. 5 intuu geemku socdo qof walba wuxuu doono uu samayn karaa, xataa qof waa uu dili karaa loomana xisaabinayo. Intaa kadib waxaynu aragnaa in kan wax eryanaya uu yahay nin dheer oo wata maaskiga faraska iyo qori oo dadka laynaya. Kadib markay bilaabmato ciyaartu wuxuu bilaabaa inuu toogto ciyaartayda. Dhanka kale Shibuki waxay u soo dhawaataa Jota waxayna ku qanacsaa inay iskaashadaan si ay uga badbaadaan dhimashada. Dhanka kale intii ciyaartu socotay ninka maaskiga xidhani wuxuu dilaa kala badh dadka ciyaarta ku jira. Kuwooda hadhayna waxay go'aansadaan inay iskaashi sameeyaan si ay u khaarijiyaan ninkan. Arisu iyo Usagi waxay raadiyaan batanka sirta ah halka Kuraabi iyo 2 ciyaartoy oo kale ay isku xil saareen inay la dagaalamaan ninka maaskiga xidhan. Arisu wuxuu helaa qol uu batankii ku jiro, laakiin nasiib xumo waxay ilaalinayaan nin kale oo waardiya. Waxaynu ogaanaynaa in si ciyaarta loogu guulaysto ay u baahan yihiin in 2 qof ay isla waqti riixaan 2 batan oo kala duwan. Arisu wuxuu qayladhaan u diraa Usagi halka Usagi oo xariifadahi dabaqa sare uga soo boodo. Si mucjisa waxay la dagaalamaan waardiyaha iyagoo ka adkaaday, waxayna riixaan 2 batan ee ciyaarta waana ay guulaystaan. Dhanka kale Kuraabi iyo nin la yidhaahdo Aguni waxay la dagaalamaan ninkii maaskiga xidhaa. Ugu dambayn way ka guulaystaan iyagoo ku dilaya halkaas. Kadib markuu dhinto waxay ka qaadaan maaskiga waxaana ku arkaan inuu wato qalab qoorta kaga xidhan, taasoo macnaheedu tahay in ninkaasi uu ahaa player geemka ciyaarayay, sidoo kalena uu ku khasbanaa inuu dilo dadka si uusan isagu u dhiman. Kuraabi wuxuu maqlayaa codka telefoonka gacanta kaasoo uu ka helay jeebka mid ka mid ciyaartoyda dhintay. Codkaasi wuxuu lahaa jawaabtu hadda gacantiina ayay ku jirtaa ee ka soo laabta xeebta. Kuraabi kadib markuu weydiis dhaho Aguni wax ku saabsan xeebta wuxuu arkayaa inuu baxay. Xalqada saddexaadna waxay ku bilaabmataa iyadoo Arisu uu u murugaysan yahay sababta uu u noqday dhimashada waardiyihii qolka ku jiray. Usagi waxa uu sheegtaa inaysan jirin wax kale oo ay samayn karaan marka laga reebo inay ku qasban yihiin in naftooda badbaadiyaan. Arisu iyo Kuraabi waxay ku laabtaan Jota iyo Shibuki waxayna u sheegaan xogaha cusub ee ay soo ogaadeen, gaar ahaan taleefankii sheegayay xeebta. Waxay ogaadaan inay jiraan 3 xeebood oo u dhow iyaga, waxayna qorsheeyaan inay aadaan si ay wax xooga uga ogaadaan. Shibuki waxa uu sheegtaa in Jota uusan socon karin lugtiisa dhaawaca ku yaala darteed, sidoo kale fiisada labadooduna ay dhammaanayso maanta. Kuraabi wuxuu soo jeediyay inay geem saddexaad galaan si ay fiisa iyo waqti dheeraada u helaan, kadibna ay raadiyaan xeebta halka ay ku taalo. Waxay galaan ciyaar kale oo ka dhacaysa beerta dalxiiska. Waxay arkaan miis loogu diyaariyey hub kala duwan iyo qalab ay madaxa ku xiranayaan kaasoo ku qarxaya haddii ay ku guuldareystaan ciyaarta. Magaca ciyaartu waa dhuudhuubasho ama tii aynu yaraantii u naqaano roodhikow. Levelkooduna waa mediumka. waxaa loo sheegayaa in kaararka wadnuhu ku sawiran yahay ay yihiin kuwa ugu adag sababtoo ah waa ciyaar lagu ciyaaraya qalbiga iyo dareenka aadamaha. Shuruudaha ciyaarta: 1 qof ayaa noqonaya dacwada, 3 kalena waa eryadayaasha. Ugu dambayntii qofka gacanta ku dhiga dacwada ayaa guulaysan doona oo noolaan doona, halka 3 kale ee dhimani ay dhiman doonaan isla marka ciyaarta bilaabmato. Jota ayaa noqday dacwadii ugu horeysay, laakiin waxaynu ogaanaynaa in qofka dacwada haysta haddii uu qof kale indhahooda isku dhacaan ay ku wareegayso dacwada qofkaas kale. Sida keliya ee lagu badbaadi karaana waa inaadan qof kale eegin kana fogaatid dadka. Kadib dacwadii waxay u wareegtaa Arisu, kadibna Kuraabi ayaa eegaya iyadoo dacwadu u wareegaysa dhankiisa. Ugu dambayntii Shibuki ayay u wareegtaa. Markay Shibuki noqoto dacwada way orodaa si ay u badbaadiso nafteeda iyadoo muujinaysa inaysan tiimka kale waxba ka gelin. Arisu iyo Kuraabi waxay ka xanaaqaan arrinta iyagoo go'aansanaya inay kala wareegaan dacwada wayna ku guulaystaan. Kadibna Arisu ayaa noqday dacwada, balse isagu waxa uu isku dayayaa inuu xal daydayo isagoo isku dayaya inuu furo qalabka madaxa kaga xidhan, laakiinse uu ku fashilmaa. Intaa kadib saaxiibadii way kala dhuuntaan iyagoo saaxiibkood Arisu naftiisa
naftooda u huraya islamarkaana Jota wuxuu bilaabay inuu ilaahay baryo iyagoo hadal xanuuna ku wada sheekaysanaya sidoo kalena muujinaya qiimaha saaxiibtinimadu leedahay. ugu dambayn waxay dib u xasuustaan saaxiibtinimadoodii iyo xilligii quruxda badnaa ay wada qaateen. Arisu wuxuu doonayaa in mid ka mid ah saaxiibadood ku wareejiyo dacwada si uusan u arag geerida saaxiibadiis, laakiin Jota iyo Kurabi indhaha uma furayaan Arisu si ay dacwada ugu wareegin iyagoo ka dooranaya geerida intay arki lahayn dhimashada saaxiibkooda Arisu. markay daqiiqado ka dhiman yihiin Kurabi uu soo baxaa laakiin ma eega Arisu isagoo macasalaameyn murugo leh ku leh saaxiibkii sidoo kalena muujinaya jacaylka uu qaba saaxiibkii. kadibna waqtigii ayaa dhimaada, jabisyada yaryara ee qoorta kaga xidhnaana waa ay qarxaan. Jota, Kurabi iyo Shubuki way dhintaan, halkaas ayay nagu macasalaameynayaan halka Arisu uu rumaysan leeyahay inuu waayay saaxiibadii sidoo kalena uu qaylaha furfuranayo. halkateena shaqada waxaa ku bilaabmaysaa Arisu oo ku sugan meel ciyaar cusub ka socoto laakiin ma gelayo. wuxuu la hadlayaa ciyaartoyda si uu ogaado wax ku saabsan xeebta balse uma jawaabaan. Arisu iyo Usagi waxaa si dhab uga go'an inay ogaadaan meesha ay dadku ugu yeedhayaan xeebta. markii dambe way iskala qaybiyaan waxayna dabagalaan qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ciyaarta kuwaasoo xidhan saacad isku wada mid ah. markii ay sii dabagalaan ugu dambeyntii waxay gaarayaan meeshii lagu sheegaya xeebta, waana dhisme aad u weyn oo u eg hotel 5 star ah. laakiin inta ay eegayaan dhismaha qof ayaa xagga dambe ka yimaada islamarkaana madaxa ku dhuftaa wayna miyir beelaan waana la afduubtaa. markay soo baraarugaan waxay arkaan iyagoo jooga howl weyn iyo dad ku hareeraysan islamarkaana waxa uu soo gelaya ninka ugu sarreeya meesha. Arisu wuxuu si toosa weydiinayaa inay rabaan inay ogaadaan wax ku saabsan geemka dhimashada iyo sidoo kale halka dadkii lagu ay qabteen iyo halka ay dunida caadiga ahaydna ay ka baxday. hogaamiyuhu wuxuu furayaa qol weyn oo uu ka buuxo kaararka ciyaarta khamaarku wuxuuna u sharaxayaa in hal qof oo keliyii uu dunida ka bixi karo si uu ugu laabto dunida caadiga ah, laakiin si taas loo gaadho waa in la ururiyaa dhammaan kaararka ciyaarta. wuxuuna sii raacinayaa in waxaasoo kaarana uusan qof keligii u soo ururin karin, sidaa darteedna ay isu urursadeen waxayna samaysteen urur ballaaran oo darajooyin kale leh kaasoo lagu magacaabo ururka xeebta. qof walbaana wuxuu helaa dhibco isla marka uu keeno kaarar cusub. sidoo kale saddexda xeere u yaalla ururka xeebta: kow waa in qof kasta uu xidhnaado dharka dabaasha mar walba, sidoo kale dhammaan kaararka la keena waxay noqon karaan haddii wada jir oo la wada leeyahay. ta ugu dambeysa ayaa ah in qofka khiyaamo ururka isla goobta lagu dili doono. hogaamiyuhu wuxuu sheegaa in haddii la ururiyo oo la buuxiyo godka kaar kasta ay awood u yeelan karaan inay qof u diraan dunida caadiga ah islamarkaasna ay sidaa ku wadayaan ilaa ay ka gaadhaan dunida caadiga ah. sidoo kale waxaa loo sheegayaa inay ku soo biireen ururka kooxda. Arisu iyo Usagi waxay dhocsadaan bulshada gudaha xeebta laakiin dadku si la yaabla ayay u eegayaan. isla habeennimadkii hogaamiyuhu wuxuu sheegaa in la helay 2 ciyaarood oo cusub waxaana dadka loogu kala saaray 2 koox si mid walba ciyaar gaara uu ugu biiro. Ana oo ka tirsan xubnaha sare ee ururka waxay Arisu ku xaysaa ciyaar jaabaa si loo hubiyo inuu u qalmo inuu ururka u noqdo xubin fulineed. ciyaarta dhexdeeda waxay galaan goob waxaana isxidha albaabada. waxaa hor yaalla 3 baton oo la kala jeedi karo waxaana loo sheegaa in mid ka mid a batonku uu keliya shidi doono laambada taasoo ku taala dhanka kale balse aysan arkayn inay shidmayso marka ay taabtaan batonka. sidoo kale haddii korontadu gaadho heerka biyuhu ay marayaan dhammaantood way dhuman doonaan waxayna haystaan keliya 2 taanis oo ay ku tijaabiyaan laambada. kadib fikrado badan oo khasaaray biyuhu waxay u soo dhowaadaan dhanka korontada xaalkuna uu ku sii adkaadaa. kadib Arisu wuu fikiraa wuxuuna jidaa hal batan. xoogaa markuu daayana wuxuu sheegayaa gabadh kale oo la yidhaahdo Kuina inay taabato laambada si ay u ogaato inay diiran tahay laambadu. haddii ay diiran tahayna waxay la micno tahay inay shidmatay taasoo ka dhigaysa in batonku ay jiideen uu yahay kan saxda ah. kadib waxa uu sheegtaa inay diiran tahay laambadu isla waxa uu dib ugu laabta batankii oo uu jiiday. sidaas ayuuna ku guulaysteen halka tiimkii kale ay uga mahad celinayaan fikradda cajiibka ah ee uu keenay. markii uu ku laabtay xeebta wuxuu la kulmaa Usagi isla waqti yar kadib. Aguni iyo kooxdiisa oo hubaysan ayaa soo gaadha meesha. Kuina waxa uu sheegtaa Arisu in kuwani ay yihiin budhcadda xeebta uuna iska ilaaliyo sidoo kalena uu amradooda qaato haddii kale ay dili doonaan. mid ka mid ah askarta Aguni wuxuu qashqashaad ku bilaabaa Usagi balse Arisu ayaa isku daya inuu ka celiyo. kadib Aguni wuxuu isku dayaa inuu Arisu cabsi geliyo isagoo qoriga ku toosinaya laakiin nasiib wanaag Hatar oo ah hogaamiyaha xeebta ayaa soo gala wuxuuna u sheegaa Aguni iyo kooxdiisa inay dagaalka joojiyaan. sidoo kalena wuxuu Arisu ku xasuubaa kulan gaar ah oo ay la leeyihiin xubnaha sare ee ururka. dhanka kale xubnaha sare wuxuu u sheegaa in kaarag dhowr ah aysan weli helin waxaana ka mid ah kaarka boqorada, ka boqorka iyo sidoo kale kaarka Jack. wuxuuna u sheegaa in kaarka kaliya ay rabaan uu yahay kaarka Ten of Hearts. sidoo kalena Hatar wuxuu u sheegaa tiimka in fiisihiisu uu dhammaanayo sidaa darteedna uu geli rabo game cusub. xalqadan waxay ku dhammaataa iyadoo Hatar inta uusan weli tegin Arisu ku casuumo fadhi gaar ah uuna u sheegay inuu noqon karo geesiga geemka. xalqada 6 waxay ku bilaabmataa Usagi oo ku garaacaysa albaabka Arisu si ay u toosiso. kadib markuu kaco waxa uu sheegaa
Usagi inuu u baahan yihiin xog dheeraada si ay u fahmaan wax ku saabsan Geeniska. Wuxuu bilaabaa inuu la sheekaysto dadka kala duwan si uu xooga uga helo. Markii dambe wuxuu maqlaa qori la ridayo, wuxuuna arkaa 3 ka mid ah raggii Hatter kuwaasoo ka sii socda qashinqubka. Wuxuu tagaa meesha wuxuuna arkaa meydad lagu tuuray. Isla markaas waxa u yimaada Kuwiina iyo saaxiibka Tishia. Waxay Arisu xasuusiyaan xeerka saddexaad ee ururka xeebta, kaasoo ahaa in qofkii wax khiyaaba la dili doono. Sidaa darteedna ay dadkan u dhinteen. Tishia wuxuu u sheegaa in burcadda Aguni ay rabaan inay dilaan Hatter si ay hoggaanka ula wareegaan. Haddii ay taasi dhacdana dhammaantood waa la dili doonaa. Waxayna Arisu sheegaan inay qorsheynayaan inay xadaan dhammaan kaadhadhka kadibna meesha ay ka cararayaan. Sidaa darteed uu iyaga ugu soo biiro, sidoo kalena uu ka caawiyo xadda kaadhadhka uuna ka aqbalo arrinta. Dhanka kale Hatter wuxuu u bahacayaa si uu fiisihiisa u kordhiyo, laakiin waxaa lagu soo celiyaa xeebta isagoo meyd ah kuna yaalaan dhowr xabadood, taasoo iyadana gadaal ka ogaan doona dhacdada cidda dishay. Kadib waxay bilaabaan ururku inay u codeeyaan cidda noqon doonta hogaamiyaha cusub, balse burcadda Aguni waxay qori ku qabtaan xubnaha sare ee ururka, waxayna ku khasbaan inay u codeeyaan Aguni si uu noqdo hogaamiyaha cusub. Iyana way qaataan amarka, waxaana Aguni loo doortaa hogaamiyaha cusub. Aguni waxa uu u soo jeediyaa khudbad uu ku sheegayo inuu yahay hogaamiyaha cusub. Dhanka kale Tishia wuxuu Arisu sheegaa inuu isagu soo xado kaadhadhka inta khudbadda lagu jiro, isaguna uu hagi doono. Arisu wuxuu galaa qolkii hogaamiyaha wuxuuna ka codsaday Tishia inuu u sheego koodhka sanduuqa, laakiin waxa uu sheegaa koodh khaldan, taasoo ka dhigaysa sanduuqa inuu isku daaro alarmiga. Isla markaana Aguni iyo tiimkiisii waxay ku qabanayaan Arisu xatooyada, waxaana ay la ogaanaynaa in Tishia uu khiyaamay Arisu. Arisu waa la xidhaa, waxaana uu sheegaan inuu halkan ku xidhnaanayo ilaa tafiisihiisu ka dhacayo oo uu laysarka guduudan madaxa kaga dhacayo, kolkaasna uu ku dhimanayo. Dhanka kale Usagi way ka haystaan, waxaana isku dayaan inay xoogaan, balse inta aysan xoogin ka hor Layla ayaa yeedha, taasoo ka kaxaysa raggii. Tishia wuxuu dib ugu laabtaa qolkii hogaamiyaha, wuxuuna xadaa kaadhadhkii, wuxuuna isku diyaarinaya inuu ka baxsado xeebta isaga iyo Kuwiinaba, balse Kuwiina waxa uu sheegtaa inuusan dareemin wax qoomamo ah isagoo khiyaamay Arisu noloshiisana galaaftay. Inta ay hadalka isweydaarsanayaan waxay ogaanayaan in goobta dhismaha xeebta ku taalo ay isku beddesho goobta geemka xiga lagu ciyaari doono, taasoo macnaheedu tahay inaan laga bixi karin goobta ilaa geemku dhammaado. Qofkii isku daya inuu baxana ay laysarada cascasi dili doonaan. Isla markaas samiicadaha dhismaha ku yaala ayaa u sheegaya qof walba in dhammaan dadku ay yimaadaan hoolka weyn, waxaana lagu wargelinayaa in ciyaar cusub bilaami doonto. Qof walbana waxa uu qaataa moobilka ciyaarta. Dhanka kale Arisu weli wuxuu ku xidhan yahay qolkii, wuxuu iska dayaa inuu iska furo laakiin ma awoodo. Dhanka hoolka ciyaarta cusub ayaa la magacaaba, waxaa la hordhigaa haweeney dhimato oo mindi laga geliyay laabta, waxayna ciyaartu u sheegtaa inay helaan qofkii dilay gabadhaas, kadibna ay xukun uga dhigaan dilaaga inay ku tuuraan dabka ololaya. Wakhtiga la siiyeyna waa 2 saacadood. Haddii aysan dilaaga soo helin dhammaantood way dhiman doonaan. Xalqadan waxay ku dhammaanaysaa iyadoo qof walbaba cabsi dareemayo, dadkiina midba midka kale uu ka shakiyey. Xalqadeena 7 waxay ku bilaabmataa isla markii meydkii gabadha la helay. Dadku waxay bilaabaan in eedda ay saaraan gabadha dhimatay saaxiibkeed, taasoo la yidhaahdo Asuhi. Dadka qaar waxay damcaan in si degdeg ah Asuhi loogu tuuro dabka holcaya si ay u badbaadaan geemkuna u dhammaado, laakiin mid ka mid a madaxda sare ee ururka oo la yidhaahdo Mira ayaa joojinaysa arrinta, waxayna u sheegaysaa in qof walba dembiilo uu yahay haddii uu ka aamuso qofkii dilay gabadha. Dhanka kale Aan oo ah gabadh kale oo caqli badan oo hore uga shaqayn jirtay shaybaarista dembiyada waxay gacanta ku haysaa tuwaal dhiig leh. Dadku waxay weydiiyaan waxa uu yahay iyagoo ka shaki qaba inay dilaaga tahay, balse Aan waxay u sheegtaa in dhiig uu yahay dhiiggii Hatter oo ah hogaamiyihii hore ee ururka xeebta. Waxay sheegtaa in xabadda lagu dilay Hatter ay ka mid tahay rasaasta ay isticmaalaan dadka ka tirsan ururku. Taas macnaheedu waa in Hatter loo dilay si ula kaca, weliba uu dilay qof inagu dhex jira. Isla markaas Aguni iyo raggiisii waxay soo galaan hoolka. Aguni waxa uu sheegaa dhammaan dadkii in qof walba oo goobta ku sugan uu noqon karo dilaaga marka laga reebo isaga, wuxuuna ku wargeliyaa inay iska soo saaraan dilaaga geemka, haddii kale uu dhammaantood laynayo oo uu gubi doono si uu geemka ugu guulaysto. Ragga kooxda Aguni waxay hawada u ridayaan rasaas, waxaana ka dhashay jahwareer iyo argagax. Dagaal ayaana bilaabmaya. Dhanka kale Usagi waxay ka haysataa Asuhi iyo taleefankii ugu dambeeyay ee soo hadhay, kaasoo Arisu loogu talagalay, waxayna ku carareen gudaha dhismaha. Ragga Aguni waxay bilaabaan inay dadka xasuuqaan si ay u helaan dilaaga, waxayna dadka ku tuurayaan dabka iyagoo rajo ka qaba in midkood yahay dilaaga si ciyaarta loo dhammeeyo. Dhanka kale Usagi waxay la kulmaysaa Tata, kaasoo ay ciyaari ka qadgalayseen isku barteen. Way iskartaan, waxayna samaystaan koox isbahaysi ah si ay u badbaadaan. Isla waqtigaas Kuwiina iyo Tishia waxay ka daawanayaan dhammaan dhacdooyinka qolka kaamirooyinka laga maamulo. Kuwiina waxay aragtaa Ana oo baaritaan ku samaynaysa meel gooni ah, waa u tagtaa si ay u weydiiso waxa ay samaynayso. Ana waxa uu sheegtaa inay samaynayso walax kiimika oo lagu ogaan karo faraha dadka, si ay mindida gabadha ka taagnaydna ay uga baadho faraha cidda wax dishay. Waxay u sheegtaa inay ahayd dembi baadhe ka hor inta aysan imaanin dunidan, laakiin isla waqtiga waxaa kasoo hor muuqda mid ka mid a ilaaliyayaasha Aguni oo la yidhaahdo Last Boss. Kuwiina waxa uu sheegtay in Ana ay iska baxdo, halka iyaduna ay ka daba xiri doonto ninkan. Ana way baxdaa halka Kuwiina dagaal ay la gasho
nolosha Last Boss inta ay dagaalamayeen labadooduba waxay isweydaarsadaan sheekooyinkooda nololeed. Last Boss wuxuu ahaa blogger aan caanimo helin, halka waalidkiisa iyo asxaabtiisu wax mataro u haysteen, laakiin dunidan markuu yimid wuxuu arkay fursad uu qof cusub ku noqon karo. dhanka kale Kuwiina waxay ahayd gabar yar, balse aabaheed uu tababari jiray sida wiilasha, kaasoo jeclaa inuu wiil dhalo balse gabar u dhalatay. taas beddelkeeda uu gabadhiisa ku barbaariyey nolosha wiilasha oo kale, isagoo dharka ragga u xidhi jiray, sidoo kale baray xirfadaha ragga ee dagaalka, kana fogay wax walba u ekaysiin lahaa gabadh. balse maalmaha ka mid ah aabaheed wuxuu ka helay qolkeeda qalabka dumarku isku qorxiyaan, taasoo ka xanaaqsay, kadibna uu guriga ka soo saaray. ugu dambayntii dagaal yar kadib Kuwiina waxay adeegsataa xirfadeedii karaateyga, waxayna halkaa ku dishaa Last Boss. dhanka kale Arisu wuxuu weli ku xidhan yahay kursigii, wuxuu isku riixaa dhanka dhulka isagoo isku dayay inuu afkiisa ku jeexa koolada lagu dhajiyey. ugu dambaynna afka ayuu furtaa, wuxuuna ku qayliyay caawiya. Usagi, Tata iyo Asuhi iyagoo diiday iyo Arisu waxay maqleen qayladiisa, waxayna ugu dambayn helaan qolka uu ku jiray iyagoo ka furo xadhkii uu ku xidhnaa. kadib markii Arisu la soo daayay wuxuu bilaabay inuu xal u raadiyo ciyaarta, isagoo leh waa inaan u fikiraa sida Game Masterku u fikirayo. dhanka kale Anna waxay baaritaan ku wadaan mididii uu ka buuxadii, ugu dambaynna waxay soo saartay qofku uu dilaagu yahay, taasoo ka dhigtay inay orado si ay ugu wargeliso dadka si giinka u dhammaado. laakiin nasiib darro ciidanka Aguni ayaa arka oo mindi ku dhifta. isla waqtiga Arisu oo fikiraya waxa uu sheegaa kooxda inuu u malaynayo inuu garanayo qofka dilaagu yahay. xalqadan waxay ku dhammaataa iyadoo Arisu isu diyaarinayo inuu dilaaga sheego. xalqadeena sideedaad ahna tan ugu dambaysay seasonka waxay ku bilaabmataa Aguni iyo raggii la socday oo dadka u soo ururinaya goobtii dilku ka dhacay, wuxuuna ku amraa raggiisa inay dhammaan dadka laayaan, laakiin ciidankiisa ayaa dib ugu labalabaynaya, waxaana u muuqdaan kuwa aan doonayn inay sii wadaan xasuuqa. Arisu ayaa goobta yimaada isagoo ku qalinaya inay joojiyaan dagaalka, waxaana uu sheegayaa dadka in Aguni uu dilay Hathor, kaasoo ah hogaamiyihii hore, halka Aguni uu garaaco Arisu. laakiin markaas ayuu ugu dambayn qirtaa, wuxuuna sheegaa inuu isagu dilay Hathor, uuna yahay dilaaga la raadinayo ee geemka, dabkana lagu tuuray isaga. laakiin Arisu wuxuu sheegaa inuusan isagu ahayn dilaaga geemka la rabo, sababtoo ma uusan dilin gabadha ee waxa uu dilay Hathor. sidoo kale waxa uu sheegay inuu dareemayo inuu ka shalaynayo kadib markii uu dilay saaxiibkii. wuxuu sidoo kale ugu daraa inaysan muhiim ahayn inuu dilo saaxiibkii si uu u noqdo hogaamiyaha, maadaama uu haystayba hubka iyo ciidanka ururka markii horeba. intaa kadib waxaan ku laabananaa xasuuso hore oo muujinaya sida Hathor uu noqday dilaaga, isagoo dadka dilaya haddii aysan kaararka geemka la wadaagin. waxaan aragnaa markii Hathor uu tegay ciyaarta si uu fiisihiisa u kordhiyo, Aguni oo fikiraya, wuxuuna doonayaa inuu isaga baxo ururka xeebta. uu ka qariyay Hathor isagoo ka baqay inuu ciqaabo mardhow, halka Hathor uu dareemayay arrinka, wuxuuna ku leeyahay qofkii isku daya inuu ka baxo ururka wuu dhiman doonaa. isagoo hadalka sii wadana wuxuu damcayaa inuu barta ku dilo Aguni, laakiin Aguni ayaa isagoo naftiisa badbaadinaya kaga horreynaya xabadda, isla halkaas ayuuna ku dilaya Hathor dil uusan doonayn balse qasab ahaa si uu u noolaado. dhanka kale Arisu wuxuu u sheegaa in gabadhii dhimatay ay iyadu nafteeda dishay, sidaa darteedna isla iyada ayaa ahayd dilaaga la doonayay in dabka lagu rido ee geemka. wuxuuna sii raacayaa inay tani ahayd geem maskaxaysan oo la rabo in ka qaybgalayaasha qalbigooda lagu ciyaaro. isla markaas Asuhi ayaa hor timaada dadka iyadoo u sheegaysa inay u adeegaysay Game Masterka, balse iyadoon wax kale sii sheegin ayaa laysarkii geemku madaxa kaga dhaca, halkaas ayayna ku dhimataa. intaa kadib dabkii ayaa lagu tuurayaa gabadhii isdishay, geemkuna uu dhammaadaa iyagoo guulaystay. subaxdii dambe Arisu iyo Usagi waxay daawadaan fiideo ay Asuhi ka tagtay. fiideogu wuxuu muujinayaa iyada iyo saaxiibkeeda uu ku baraarugaya magaalada Tokyo oo maran. waxaa u yimid nin u sheegaya inay noqon doonaan dealers oo ah kuwa abaabula ciyaarta ama dadka jahawareeriya ciyaarta dhexdeeda. waxaa lagu amraa inay caawiya ka noqdaan geemiska, taas beddelkeedana waxay heli doonaan 2 toddobaad oo dheeri ah marka loo eego dadka kale fiisahooga. waxaana loo raacayaa in haddii ay sheegaan waxooga ay dhiman doonaan, waana ta ku dhacday markii dhaweyday. fiideoga kale ayaa muujinaya Asuhi oo si qorsada u galaysa xarrisira, halkaasoo ay ku jiraan dadka geemiskan ka dambeeya. waxaanu arkaynaa meelo dad badan oo kombiyuutarra ku shaqaynaya ay joogaan, kuwaasoo daawanaya geemka kuna qoslaya dhimashada iyo rafaadka dadka geemka ciyaaraya, waxayna kala dooranayaan ka qayb qaatayaasha geemka. Arisu iyo Usagi waxay booqdaan xaruntaas, isla marka ay galaan meeshaas waxay arkaan in dhammaan dadkii maamulayay geemka la dilay, iyadoo mid kasta uu madaxa kaga dhacay leysarkii casa. Shiya iyo Kuwiina sidoo kale halkaas ayay yimaadeen, waxayna sheegaa in kuwani aysan ahayn kuwa maamulayay geemka ee uu jiro dad kale oo ka dambeeya waxan. isla markaas cod ayaa shaashada kasoo muuqda, Mira ayayna ahayd, waxayna ku leedahay ciyaartoyda nool waxay wajahi doonaan ciyaaro cusub, markan waxay ciyaari doonaan ciyaaraha face cardska. kadib Arisu wuxuu leeyahay hadda ugu yaraa waan ogaanay cidda ka dambaysa dilalka iyo geemiskan, si fududna waan u garan karnaa cadowga iyaga. qaybta ugu dambaysa waxay muujinaysaa Arisu, Usagi, Kuwiina iyo Shishiya oo wada taagan, waxayna eegayaan balooniska hawada sare ku duulaya oo sita calaamado face cardsa, taasoo muujinaysa ciyaaro kale ay bilaaban doonaan. seasonkeena koobaad ee filimka Alice in Borderland
Seasonkanna halkaas ay ku dhamaaday. Seasonka labaad waxaanu soo dhigi doonaa xalqada ku xigta insha Allah taala. Haddii aad channelka ku cusubtay subscribe dheh mahadsanid.